xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi oo warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi waxa uu dhaliilo u jeeday kulankii madaxweyne Biixi magaalada Addis Ababa uu kula yeeshay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xoghaye Khadar ayaa waxa uu xukuumadda ka dalbaday in ay si dhaqso ah shacabka iyo xisbiyada mucaaridka ah ay ula wadaagto ajandaha kulankaasi. dhinaca kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani waxa uu si adag u duray hadalkii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland uu kaga warbixiyay kulankii dhexmaray madaxweyne Biixi iyo Farmaajo. xogayaha oo ka hadlaya arrimahan iyo arrimo kale waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan doonayaa maanta inaan wax ka iraahdo arrinta siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland guud ahaan, gaar ahaan Addis Ababa iyo maalmihii ugu dambeeyay arrimihii ka dhacay. waxaan doonayaa maanta inaan wax ka iraahdo sida aan la socono 29 sanadood wax ku dhawaayay imka Soomaaliland intii ay jirtay ay ahayd taariikh ahaan marka laga soo bilaabo markii dawladda siyaasada ay dhintay ee Soomaaliland ay xornimadeeda dib u soo noqotay. 29 sanadood kadib waxa xaqiiqo ah shacbiga reer Soomaaliland inaanay ku filayn madaxweynihii sida loo soo dhaweeyay, inaanay ku filayn shirarkii ama tagnay guul baa laga gaaray, inaanay ku filayn hadallo aan sameynahaynin nuxur lagu qiimeeyo ama lagu garto. waxay caadaysteen dhammaan madaxda Soomaaliland marka ay safar tagaan ee dadka ay matalayeen ay u ceelaliyo tagaan ama ay shaqo soo qabanayaan marka ay soo noqdaan inaanay wax xoga siinin. marka laga yimaado in yiraahdaan annaga hawlana dejiyay, annaga si fiican noo soo dejiyay, noo soo dhaweeyay wax iyaga iyo wixii marka loo qabtay ku saabsan. shacbiga reer Soomaaliland waxa ay jawaab uga baahan yihiin sugayaan arrimahoodii aviation-kii hawadu halka uu ku dambeeyay iyo sida uu yahay. waxa ay jawaab uga baahan yihiin sugayaan arrimaha la xiriira socdaalka iyo marka ay safrayaan sida ay dawladnimo u heli lahaayeen. cidda ay ka sugayaan dawladnimadaasina waa madaxda maanta joogta ee mas'uuliyiinta qaranka. waxaa laga yaabaa inaanay iyagu dhibaatadaasi dareemin, laakiin hooyada xanuunsata ee u baahatay in India ama meel kale caafimaad iyo dhakhtar u tagto, dhibta ay u marto, ama aabbaha xanuunsada dhibta uu maro, oo waxaynu wada ognahay. marka dawladnimada iyo baahida aynu u qabno iyo inta ay leeg tahay waxaynu isku cadeeyno aynu isu sheegayno maaha. Somaliland madax badan oo ka mid ah madaxdeedu waxay caadaysteen inay dadka majara habaabiyaan, inay sawirro been u soo galaan. bishan maxaan ku dhahdaa aakhirkii bishii hore ayaa waxaan tagay Brussels. dadkii aan la kulmay mid ka mid ah oo maxaan ku dhahdaa dadka oo wax noo facilitate gareeyay waxa uu igu dhaartay inuu arkay madax reer Somaliland oo maalintan xarunta baarlamaanka Yurub maxaan ku dhahdaa ku meelaysan si ay u helaan fursad ay sawir ku galaan, dabadeetana sawirkaasi ay dadka shacabka inta ugu soo diraan ay ku majara habaabiyaan ay been ugu sheegaan. Somaliland been kuma dhismi karto, aragtida Somalilandna been laguma meel marin karo, sida ay hadda tahay beenta ku dhisanna laguma sii wadi karo oo laguma sii socon karo. waxaynu ognahay Somaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda maalinta ka dambeysay inay hoos u soo dhacaysay. berigii hore Janday Faysal baynu ogeyn inay Hargeysa timi, waxaynu ogeyn in madaxweynihii Daahir Rayaale ka ahay uu intaasoo madaxweynayaasha dunida la soo kulmay. waxaynu ogeyn sidoo kale Siiraanya inuu soo kulmay madax badan oo ilaa maxaan ku dhahdaa David Cameron ka Ingiriiska uu ka mid ahaa uu la soo kulmay. arrinta Somaliland waxaa berigii hore loo oran jiray waa arrin u taala Afrika, laakiin waxaad moodaa maanta in arrintii hoos halkii looga soo riday oo laynagu idhaahdo waa arrin u taala maxaan ku dhahdaa Soomaalida arrin u taala weeye. halkaasina waxa ay tahay qorshe xumaanteena iyo iska socodkeena iyo xukuumadeena oo aan wax qorshe iyo istiraatijiya oo cad oo arrimaha dibadda aan lahayn. wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya sida aynu la socono waxa weeye waa wax inagu aynu dalbanay, caalamkuna uu ka shaqeeyay sida ay wada hadalladaas u dhici lahaayeen markii 2012 ay bilaabmeen. madaxweynaheena hadda jooga ayaan tidawaytay oo Addis Ababa tagay
waxaa laynoo xaqiijiyey oo iyaguna inoo xaqiijiyey in uu la soo kulmay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. kulanka wasiirkii arrimaha dawladda markii uu soo noqday ee idinku aad wada joogteen ee uu hadlayay siduu dadka ugu sheegay iyo siduu dadka ugu warramay waxaan isleeyahay wax dadku geeyaan ma wax shacabkii reer Soomaaliland ay ka geeyaan ma wasiirkoodii arrimaha dawladdu intuu isu soo taago inuu yiraahdo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ra'iisul wasaaraha la sii macasalaameeyay la sii salaamay ayuu baan ku kulannay. xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ma aha basaskii qarayay ilaa saylada maxaa ku dhahdaa subaxdii dilaaliinta iyo hiliblayaasha si kala haya ay sida maxaa ku dhahdaa aan ku talagalka ahayn ay isugu soo horbixi jireen deetan isku sii warsan jireen. wax xafiis protocol iyo nidaam dawladeed cid aan isku gelin inay sarkaana aanay sarag qol maaha iyo laba qol oo maxaa ku dhahdaa cid kasta soo gashay isku arkayso. markaas waxa ay muujinaysaa inaan waxay qaranayaan oo qarsoon ay dadayaan ay jirto amaba waxay yiraahdaan aanay garanaynin oo qorshe la'aan ay tahay. waa laga sugayaa in arrintaasi ay sharaxaad ka bixiyaan, waa laga sugayaa arrintaasi inay daahfurnaan noqoto, waa laga sugayaa inay shacbiga reer Soomaaliland uga warramaan kulankaas iyo wixii ahaa iyo wixii laga wada hadlay iyo wixii ka soo baxay intaba. waxaynu doonaynaa inaynu ogaano ajandaha kulanku muxuu ahaa. kow maxaa laga wada hadlaya? xaq baynu leenahay, shacbiga reer Soomaaliland baa xaq u leh, xisbiyada siyaasadda xaq u leh, golayaasha kale ee qaranka ayaa xaq u leh. waxaynu u baahannahay inaynu ogaano muxuu ahaa qorshaha iyagu ay la tegeen, banaanka iyo qorshaha ay meesha la tegeen muxuu ahaa. waxaynu u baahannahay inaynu ogaano maxaa ka soo baxay ee la isla gartay ee laga wada hadlay. waxaan u baahannahay inaynu ogaano halkaynu uga dhaqaaqayno, halkaa aynu imika taaganahay wada hadallada kadib iyo saragaa kadib maxaa ka dambeynaya ee maxaa ku dhahdaa loo dhaqaaqaya. qarankan dantiisa iyo horkiciisa iyo horsocodkiisu sir maaha, waa in dadka lala wadaago haddii aan wax xun aan la qarinahayn. asalan bana wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waa inay noqdaan wada hadallo heer qaran lagu hogaamiyo, waa inay noqdaan wada hadallo daneeyayaasha siyaasadda iyo gobollada Somaliland oo dhan ay ku jiraan oo ay ka dhex muuqdaan. waa arrin aad iyo aad u muhiima, waa masiir ummadeed. suurtagal maaha inuu madaxweynuhu qof kula soo shiro ama madaxweyne kale kula soo shiro oo kula gunto oo marka uu soo noqdana aan xoga inaga siinin wax midhaha ay dhalaysaana ma jirto. wax shacbiga reer Somaliland iyo daneeyayaasha kale siyaasaddu ay aqbalayaana run ahaantii ma aha. madaxweynaha iyo dawladdu hogaaminta ay leedahay arrinta wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya marka laga hadlaayo, laakiin tiisa arrin ay keligood go'aan ka qaadan karaan maaha. waa sababta madaxweynuhu hadduu hal heshiiso iyo ganacsi xataa soo galo loo yiri baarlamaanka waa inaad geysaa, ilaa aad baarlamaanka geyso wax rasmi oo heshiisa ma noqonayo. macdala waaba arrin masiirkii ummadda oo dhan ah oo maxaan ku dhahdaa ummaddu ay doonayso inay warkeeda wada hesho. sidoo kale waa inuu jiraa qorshe cad oo lagu waajahayo arrinta wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya. ilaa hadda sida inoo muuqata wax qorshe oo cad oo dejisan oo xukuumaddu ay leedahay ma jiro. annaguna diyaar baan u nahay xukuumadda inaanu maxaan ku dhahdaa kala shaqeyno oo ka caawino wixii tamarteeda iyo aqoonteeda ah habka wada hadalladaasi loo gelayo iyo sida looga shaqeynayo, maadaama oo ay arrin qaran tahay. laakiin tiise arrinteenu waa inay kaleer noqotaa, waa inay caddaataa, waa inay wax la isla wada og yahay noqotaa. waxa xaqiiqo ah maanta arrinteenu waxay taagantahay Soomaali la hadla. halkaynu tagno iyo ciddaynu tagno iyo ciddaynu la hadlaaba waxay tiraahdaa Soomaali la hadla. Soomaali sidee baynu la macaamilaynaa? su-aasha aynu maanta u baahannahay in laga jawaabo oo dawladdu ay ka jawaabto oo qorshe qaran aynu ka yeelano taa weeye taynu u baahannahay inaynu eegno. jawaabteenu noqon mayso inay noqotana maaha maxaan ku dhahdaay caytan maxaan ku dhahdaa Twitterka iyo meelahaasi laga sameeyo. taasi macna ay samaynayso iyo waxay soo kordhinaysaa midna ma jirto. laakiin waxaan u baahannahay inaynu ummadnimo muujino, wanaag muujino, niyad wanaag muujino, sidoo kalena aynu qorshe cad oo loo wada dhammaystiran yahay aynu yeelano. aad iyo aad baa umahadsan. xoogay aad baa umahadsan tahay. su-aasha
وهو صدق كويتيو التصبح كسر شركة مدوق أفريقيا وزير قارنها تبدنا وحوش إن شركة سومالان المهم وها مدحوينها كسر درادي أي ويانا ومرتبو كغير قري سيدات كل بعدين إن مدحوينه أنا لكم من مدحدي أفريقيا كهاي الشركة كسر قريب كشيء حديث أي شفتوا إن أنا مدحوين عندكم من حقيقة صارتها وشعبكم ملو ذاك أنا مدحوين عندكم لكم ما يعلموا كل من مدنا وما نرنين iyaga laga doonayaa deyn cadeeyay cidii ay la kulmeen iyo wixii ay kala soo hadleen iyo wixii ay kala yimaadeen wax cadeeyno loo muujinaysa ma jirto maxaan ku dhahday meesha laba shir baa ka dhaca shirka guud oo hadda kameynaan qeybgelino iyo wax xaqiiqo weeye oo maxaan ku dhahdaa madihin qaran aqoonsan yahay midna wuxuu ahaa maxaan ku dhahday waxaan la yiraahdaa sideline meetingka ama shirka ka barbar socda shirka ka barbar socday oo wada arkay oo maxaa ku dhahday madaxdii kale oo shiraysa TV-yada laga sii deeyay wararkii sawirada ku arkaysay ama sawiradaana ma arag wararkaana ma arag qoliyaheenii sawirada jeclaa madax Afrikaan oo ay soo arkeen la soo kulmeen islaamay soo sawiray anigu deema iibsanay cidii iibsanaysa iyaga taala وأنا كوي مقعد وخير فانتاستيك تلفزيون سومالي كيلو فان كسودا مدرب حسبك وضري واحد نقول يدني أرمها السياسة الجديدة اللي هي الدولة حما حصل شيء مدعم من مركي وإثيوبيا تبي واحد وضع كلمين مدعم منها دولة الفدرالية الصومالية مع عدل بهذا الماتش أرين تاسك حسبها من ينتهي بيدين ثم دام حسبك إنه مدرب يدني حريك مو بشو أنا معنى كفردين أنا أقول إنك جواب مدوني لكن مدحوينه maxaan ku dhahdaa oo la kulmi kara madaxda kale ee Soomaaliya maxaan ku dhahdaa waa madaxweynihii qaranka laakiin diisa waxa laga hadlay waxa weeyaan markuu kala kulmay maxay tahay muxuu kala hadlay halkeedii markaa uga dhaqaaqana xoogay waxa jirta madaxweynaha dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya هذا الوجهي أو شيء مثالي كسيني شعب Somaliland بحيامي أي بقعة دولتي محمد سيد برحيلي Soomaaliya بيسكون جري هذا الكاسي إذا كحسبي حاسد يدين الموضوع runtii hadalkaasi waan dhageysanay marka arrinta Soomaaliland wixii ka dhacay dambi dagaal iyo maxaan ku dhahdaa in arrin aad iyo aad u foolxun oo dowladii dictatorka ahayd kale taliska ahayd ay geysatay runtii waxaan aragnaa inay tahay tallaabo wanaagsan inay bilaabayaan madaxda Soomaaliya inay arrintaasi daraal ka keenaan لكن arrimaha qaarkood marka laga hadlayo waxay leeyihiin arabixino caalami ah oo yaqaano waxaan rajaynaynaa inay wada hadallada qayb ka noqon doonto apology ama raaligelinta Somaliland la siinaya arabixin nooceeba yeelanaysa waxyaabaha laga wada hadli doona ay noqon doonto laakiin inuu madaxweynaha Soomaaliya sheegay inuu ka xun yahay waxa weeyaan waa talaabadii ugu horeysay oo wanaagsan wixii inta ka dambeeyana waxa rajaynaynaa in wada hadallada ay ka soo bixi doonaan in sidii looga faguri lahaa loogu sameyn lahaa bixinta caalamiga ah ay leedahay wixii hadda ka dhacay magaca khalaas xusaan TV madaas inta ay kulmeen labada madaxweyne oo sameeyay farmaajo xisbiga laga jaabo ka hadlay oo hadda laba ku noqonayso ma laga yaabaa in labada madaxweyne ay arrimo culus ka wada hadleen jawaabta xukuumadda inay ka dhacsan waxaan malaynayaa markii ay soo noqdeen waxay ahayd 48 saacadood wax ka badan wasiirkuna uu ka hadlay saxaafaddu markii ay fursad maxaan ku raadayay sideed su'aal ku weydiisana uu ka dhaqaaqay maxaan ku raadayay isagoo runtii ka faa'iideysanaya in idinkuna aydan organizer ahayn taasuu ka faa'iideystay laakiin tiisadii wixii uu doonayay meelaan rabay maxaan ku raadayay rogmiyuuri baa loo jeeday Soomaa inuu saxaafadda ka dhaqaaqo oo waajibaad uu doonayay hadduu doonayay saxaafadda inuu waajibo inamadu intay magacyadooda sheegayaan uu iska sugi karaa inaguna magaca ku dabaqtaan ma ahayn in su'aasha ninka weydiisaan Ibrahim Ismail shabakada wararka News magaalada Hargeysa